waxaa xaas ah in ku dhow sanad ama ka badan ilaa iyo hadda uur maanan qaadin. Cilladda xaggee ka jirtaa? Waxaa kula wadaagi doonaa ilaa iyo 4 qodob oo runtii kaa hor istaagi kara inaa uur qaadid. Qodobka koowaad wuxuu yahay haddii hormoonadaada aysan isku dheelitirnayn. Haddii tusaale ahaan caadadaada bil kasta aysan kuu saxnayn, haddii sidoo kale uu yar yahay hormoonka la yiraahdo progesterone-ka, wuxuu keeni karaa in gabadha ay uur qaadi weyso. Qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlo wuxuu yahay qaab noloshaada aad wax ka khaldan micnaha qaabka u nooshahay wax ka khaldan. Tusaale ahaan waxaa tahay gabar aad u caylan, iskuma dayaysid inaad iscaataysid. Sidoo kale haddii exercise aadan sameynaynin ama jimicsi aadan sameynaynin, haddii kafey badan aad cabtid oo aad u xad dhaafay, ayagana waxay kaa hor istaagi karaan inaa uur qaadid. Qodobka saddexaad asagana wuxuu yahay stresska badan. Haddii aad isku stressid maxaa uur u qaadi waayey, cilladda xaggee ka jirta, waxyaabahaas oo dhan ama stress badan uu ku galo ama family ha ahaato, ayadana waxay keeni kartaa in uu kaa saameeyo ugxaanta saameyn ku yeelata inaa uur qaadi weyso. Qodobka ugu dambeeya afraadna wuxuu yahay haddii xanuuno qaar ay jiraan. Tusaale ahaan oo kale waxaa jira xanuun la yiraahdo polycystic ovarian syndrome. Sidoo kale waxaa jira xanuuno ku dhaco thyroid, ayagana waxay keeni karaan in gabadha ay qaadi weyso uur ay qaadi weyso. So marka haddii inta aan soo sheegay mid ka mid ah isku aragti ama ka sheeganaysid, wixii comment ee xagga hoose u dhaaf.